xaaladda magaalada muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya oo kacsan isla markaana ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo aad u xoogan. xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ayaa xirtay xaafado iyo wadooyin muhiima oo bartamaha muqdisho ku yaala. haddaba maxaa ka soconaya muqdisho waan kula wadaagi doonaa, iyada oo markaasi aan si qoto dheer u faahfaahin doono guud ahaan xiisadda halkaasi ka taagan. soo dhowow muuqaalka like saar, aragtidaada qaybta faallada ee commentiga ku dhiiba. haddii aad horey noola joogtay waad ku mahadsan tahay, haddii aad nala jooginna nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada mar kasta hela wararka iyo warbixinnada aynu halkan ku baahino. hagaaga magaalada muqdisho ee caasimadda dalka oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay ka taagneed xiisad siyaasadeed oo u dhexaysay madaxda dowladda federaalk Soomaaliya ee muddaxileedkooda uu dhammaaday iyo xubnaha golaha mustaqbalka Soomaaliya ayaa u muuqata markan inay isku beddeshay xiisad military kadib muddo markaasi wadahadalla ismariwaa ah ay yeesheen golaha mustaqbalka iyo madaxda filla Soomaaliya. waxaa ugu dambeyn markaasi 15 May markii uu dhammaaday muddaxileedka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, golaha mustaqbalka ay ku dhawaaqeen dibadbaxyo waaweyn. maalinimada biri oo 4 bisha Juun ayaa loo ballansan yahay dibadbax ballaaran oo lagu muujinayo diidmada muddo kororsiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. kadib markii golaha mustaqbalka ay iclaamiyeen dibadbaxaasi, filla Soomaaliya waxa ay qaaday tallaabooyin waaweyn oo isugu jira wadahadalla ay doonayso inay mucaaradka ku qanciso inay dibadbaxaasi ka baaqdaan, maadaama ay u aragto caqabad weyn oo gilgili karta damaca muddo kororsiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. gabi ahaan wadahadalladii ayaa fashilmay, waxay isku daydeen markaasi awood military, laakiin mucaaradka ayaa u muuqda inaysan dhammaan isku dayadii filla Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aysan dheg jalaq u siinin. magaalada muqdisho shalay waxaa bilowday dhaqdhaqaaqii ugu weynaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana waxaa la soo warinayaa in tan iyo xalay uusan markaasi khadka telefoonka ka bixin, oo cid kasta oo islahaa markaasi waa ay ka ergeyn kartaa oo mucaaradka way la hadli kartaa ayuu khadka telefoonka kula xiriiraya. haddaba shalay ilaa iyo maanta muqdisho waxaa ka soconaya ilaa xalay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo aad markaasi u xoogan. xubnaha mucaaradka ee ugu saamaynta badan isla markaana lagu tilmaamo jirib culusta siyaasadda Soomaaliya ayaa xalay qaybo kala duwan oo magaalada muqdisho fariisimo ka samaystay isla markaana degay. madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa la soo warinayaa in uu degay bartamaha Mirnaayo, isaga oo markaasi si gaar ah loo sheegay in uu degan yahay hoyna ka dhigtay dabaqa lagu magacaabo guriga ama daarta Cali Mahdi. guriga Cali Mahdi ayuu degay, taasoo lagu tilmaamay inay tahay mid ka mid ah guryaha ugu dhaadheer ama dabaqyada ugu dhaadheer ee muqdisho ku yaala. madaxweyne Shariif ayaa daartaasi degay, waxaana uu soo bandhigay dhoolatus ciidan. inta uusan halkaasi tegin waxaa madaxweyne Shariif Sheekh Axmed la arkay isaga oo ay gelbinayaan boqolaal ciidamo military ah oo gaadiid dagaal iyo hub culus markaasi ku hubeysan. waxaa lagu tilmaamay in madaxweyne Shariif Sheekh Axmed uu muujinayo dhoolatus isla markaana fariin uu u dirayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo tiimkiisa ku howlan muddo kororsiga. haddaba madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa xirtay dhammaan wadooyinka soo gala aagga Mirnaayo iyo halka uu markaasi degan yahay, iyadoona la tilmaamay in biri marka la gaaro 7 subaxnimo uu halkaasi ka hogaamin doono dibadbax ballaaran, iyadoona ay filla Soomaaliya xalay markaasi qaaday tallaabooyin ay ciidamo ku dul dhigayso aagga uu madaxweyne Shariif Sheekh Axmed uu degay. laakiin waxaa muuqata in madaxweyne Shariif Sheekh Axmed uu durba helaya taageero kaga imaanaysa dhinaca waxgaradka uu hayb ahaan madaxweyne Shariif Sheekh Axmed uu ka soo jeedo.